ayadoo khilaaf sal iyo baar ah uu hareeyay ururka ONALIF wixii ka dambeeyay doorashadii gudoomiyaha ururka Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey 2019 ayaa waxa uu kaadirka ururka ONALIF uu maanta uu soo saaray warmurtiyeed ay ka mid ahaayeen in ururka la badbaadiyo. waxaa haatan khadka si toos ah ugu jira oo ku sugan magaalada Wardheer ee xarunta maamulka gobolka Doolo Cabdirasaaq Sarhaye oo ka mid ah xubin golaha dhaxa. haddii aad maqli karto mudane waan ku soo dhaweynayaa warmurtiyeedkan ee ururku ay soo saareen maanta maxaa keenay warmurtiyeedkaasi wuxuu ku saabsan waa qayb ka mid ah khilaafkii maaragtay ururka dhexdiisa ahaa ayaa garabka sixitaanku waxay u fahmeen maaragtay ama isla qaateen kaadarku in aan laga aamusnaan karin sidaa darteed baaq bay soo saareen waad aragtay marka waa walwal iyo walaac laga qabo mustaqbalka ururka waxayna ku baaqeen in la badbaadiyo ururka. waayahay aad baad u mahadsantahay mudane khilaafkani laga shanqariyey ee u dhaxeeya markaasi ururka maxaa keenay baad is leedahay khilaafkan in muddo ayuu soo jiitanahayey gudoomiye Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey intii la doortay ayuu cirkaas ku shareeray waxyaabo fara badan buu maarta salka ku hayaa waxaa ka mid waxyaabaha la isku hayo ama la isku diidan yahay maamulka siduu wax u wado waxyaabo mabda quseeyana way jiraan marar badan baa la isku day in la xaliyo ilaa hadda xal waa loo leeyahay waa khilaaf ku saabsan maamul inta badan iyo mabda labadaba gudoomiye Cabdiraxmaan wuxuu noqday keli taliye keligii doonahaya iyo koox isaga ku xeeran in ay talada go'aamiyaan oo ay wataan umana joojiyaan ururka intii badnayd oo weliba intii maaragtay dadka shacabka ahaa ee inta faraha badan ay taageersan yihiin guddiga fulinta iyo golaha dhexe lama tashado waxaa jirta marar fara badan wuxuu soo saaraa bayaano uusan kala tashanin guddiga fulinta iyo golaha dhexe marar fara badan wuxuu maaragtay dagaal ku qaadaa ama uu weeraraa cidda isaga uu rabo cidda uu isagu maaragtay taageersan yahayna uu taageeraa marka ururkiiba wuxuu ka dhigay boorso jeedka ku jirta oo isagu markuu adsaba jooga adsaba u raacda markuu jijiga yimaadana jijiga joogta kolkuu meel kale aadana raacda isaga marka ururkiiba wuxuu ka dhigay wuxuu isagu iska wato waxyaabahaas marka khilaafka salka ku haya. waayahay mudane aad baad u mahadsan tahay mar kale anoo kusoo dhaweynayaa waxaa in lagu xamanayaa amaba hadda soo baxday in ururka qaarkii uu markaasi uu la shaqayn jiray dowladdii hore ee Cabdi Maxamed Cumar iyo weliba TPLF arrintaasi maxaad ka leedahay way jiraan xubno maaragtay lagu xanto inay xiriir la lahaayeen ururka lama dhihi karo laakiin ashqaas ama xubno waa la dhihi karaa tuunkaas way jiraan waxaa jirta xilliyada kamida oo ay ku kulmeen gudoomiyaha iminka talada haya iyo dhowr xubnood oo kale iyo saraakiil TPLF iyo Cabdi Ile ay Dubai shir ku qaateen ururku ma uusan ogeyn lamana go'aaminin taasoo kala maaragtay waxyaabaha keenay khilaafka iyo aaminaad darrada bay ka mid tahay marka ururka ONALIF baa la shaqayn jiray TPLF lama dhihi karo laakiin ashqaas ururka madaxdiisa kamida inay la shaqayn jirto xiriir la lahayd waxa weeye way caddahay kulamadaasana dhacay waa tahay mudane waxaad warmurtiyeedka aad ku xusteen banaanbixii ka dhacay magaalada Qabridahar iyo dad mas'uuliyiin oo ka tirsan ururka ONALIF oo la xidhay arrintaasi maxaad naga oran kartaa waan ka xunnahay horta mas'uuliyiinta la xirxiray ee magaalada Qabridahar waxaan isleenahay xarigaas meesha kuma jirin waxaan kaloo aaminsanahay sideeda in wixii conflict keeni kara ee deegaanka ama iska hor imaad in laga baaqsado oo dhan ayaan maaragtay yaan taageersanahay midda kale shirkii lagu qabtay magaalada Qabridahar ma ahayn mid ONALIF oo dhan inta la soo go'aamiyey in magaalada Qabridahar laga banaan baxo lama go'aaminin islaamana qaadin golaha dhexe guddiga fulintana islama ayna ogeyn magaalada Qabridahar in lagu qabto shir
sababtu waxa weeye deegaanku wuxuu ka kooban yahay 11 gobol caasimadii deegaanka oo jijiga maaragtay lagama sameeynin 11kii gobol iyo degmo banaanbax ama taageere isu soo bax lagama iclaaminin magaalada Qabardahar kaliya ayaa maaragtay yu ku ekaa marka waxay ahayd waxa uu maaragtay ay dad gaar wataan mideeda kale haba la qabto shirkaas dadka waxa lagu abaabulay cududeenan muujinaynaa oo maaragtay ururka iyo taageerayaashiisa baa la soo bixiyay oo dadkuna waxa weeye waa dad ururka taageersan gobonimada jecel dadku ay soo baxeen markay isu yimaadeen dadkii khudbadaha meesha laga jeediyay khudbadihii waxay noqdeen kuwa aan dadkii farax gelinin oo wixii dadka lagu abaabulay ee loogu yeeray aan ahayn meeshii waxaana ka soo baxay in loo dabaaldegayo maalin la sheegay in la heshiiyay Ethiopia marka taasuna qorshaha maaragtay ururka hadaf uma ahayn maalinta hadii la xusahayo xataa hadii la xusahayo si wadar ah oo gobolada iyo deegaankooda ka jirta loo xusi lahaa magaalada Qabardahar kaliya laga xuseen Qabardahar waa magaalo kamida magaalooyinka Somali State waayahay mudane su'aasha ugu dambeysay dabcan aan ku weydiin lahaa waraysi waxa jiray dhawaan aasisay warbaahinta Habasha waxaad sheegtay in ururku qaarkii uu yiraaday waxaan la shaqeynaynaa dawladda dhexe halka ay markaasi ay diideen dawladda deegaanka inay la shaqeeyaan arintaasi inaad noo ifisaan jeclaan lahaa si guud oo la fi Ethiopia markii ay heshiiyeen dawladda deegaanka Soomaalida horta in heshiis dhaco waxa qayb libax ka qaatay maamulka deegaanka oo uu hogaaminayo Mustafa Maxamed Umar gudoomiyihii xisbigii SDB xilliga Ahmed Shire yaa kamid ahaa ragii qaybta libax ka qaatay in ay ONLF iyo Ethiopia ay heshiiyaan ONLF waxa weeye way timid si heer sare oo heer caalami ah loo soo dhaweeyay dawladda deegaanka ayaa soo dhaweysay si qurux badan oo maaragtay gacaltooyo iyo walaaltinimo ka muuqatay dawladda deegaanku ay u soo dhaweysay inta kadib waxa soo baxay khilaaf marka u dhaxeeya intii la doortay gudoomiye Cabdiraxmaan khilaaf oo arlaf iyo maamulka deegaanka u dhaxeeya soo baxay oo aan dawladda federaalka ka jirin sida darteed waxyaabaha ismaandiidka keenaya ayay kamid tahay in dawladda federaalka la taageero ay ONLF u muujiso dawladda deegaankana la fogeeyo iyo madaxdeedaba waxaan aaminsanahay inaga Soomaaliya inaga deegaanka wada leh inaan inagu ay maartay xataa hadaynu wax kala tirsanayno oo wax inaga xumaadaan xataa si maartay gudaheena inaan u xalino taasana anagu taageersanahay laakiin ma taageersanin inaan dhaha maartay sidii dhici jirtay sanado hore la soo dhaafay waxa ay wata hebel iyo soo ka imaanaya iyo xukunka hebel iyo wareejinaya waxaasi waxa weeye qorshaha iyaga ma aha qorshe fiican ma aha inta waxaan ku raacinayaa waxaan soo marnay sanado badan oo dhibaato ah oo halaag ah oo qax ah oo dil ah oo dhac ah oo xabsi ah oo kufsi ah oo dhibaato ah ayaan soo marnay dadkeena wuxuu soo maray jeelasha lagu maartay dhibaateyn jiray waynu garanaynaa dadkeena in waxa weeye dad aad u fara badan baa qaxay oo wali maqan oo dalka imaanin isbedelkii intii uu isbedel ku dhacay waxaa dhacay nafis baa dhacay labada sano dadku way nafiseen waxa weeye dadku way nasteen wadanku waa amni wax dhibaato ma jiraan waxa sabab u ah ONLF iyo Ethiopia heshiiskoodii baa kow ka hadii marka maanta kursi inagoo isku eriyanayna mar kale haddana maaragtay nabada la laalo waxa weeye wax la aqbali kara ma aha waxaan ugu baaqaynaa oo soo jeedinaynaa mar walba aan ku celcelinaa dadka Soomaalida inay midoobaan inay isu samraan wixii dhibaato dhexdooda inay iyagu xaliyaan aan meel kale iyo maaragtay shaqeeyo la isku dacweynin mar walba intaas ku baaqnaa warbaahintan aan siiyay waraysigana waxa weeye waxaan siiyay waraysigaas wuxuu ka koobnaa dhowr qodob muhiimadiisa waxay ahayd in bayaanada uu warar saxaafadda Ethiopia uu gudoomiyuhu siiyo aynan ahayn mid guddiga fulinta iyo golaha dhexe ONLF lala wadaago in gudoomiyaha iyo tiro yar oo isaga la socota ay iska maaragtay ay wataan wuxuu kala ku saabsanaa inaynan jirin colaad u dhaxaysa ONLF iyo maamulka deegaanka ee jiga fadhiya
waxaa ka mid ahaa in guddoomiyaha in badan baaq loo diray inta uu cid kale eedayn hayo ama uu ka caban hayo in uu ururka dhexdiisa khilaafaadka ka jira inuu xal u raadiyo inayaalahaasaan ka mid ahaa marka si kasta ha noqotay annagu waxaan mar walba ku baaqaynaa oon soo jeedinaynaa in nabadda iyo xasiloonida la dhowro waayo arag baa nahay waxaan haysanaa sanado badan oo khibrad ah oo aan dhaxalay oo soo marna dhibaato iyo ayaandaro iyo hoog iyo halaag maanta uma baahanin mar dambe inay fursadani naga lunto fursad fiican baan haysanaa ONLF waa xisbi hadda waa xisbi u tartamaya talada wadanka Ethiopia oo heer qaran ka tartamaya sidii maaragtay dee xisbi waad garanaysaa waxaan ku soconaa kuraasta inaan maaragtay inaan talada qabanaan ku soconaa haddana laakiin nooc kharbudaada inaan ku tagna meesha ma doonayno dadku waa nugul yahay dadkeen waxa weeye dhibaatooyin fara badan bay soo mareen sidaa darteed waxaan ku soo gebagabeynhayaa nabadda iyo xasiloonida iyo kala dambeynta in la ilaaliyo dawladda deegaanka iyo ONLFna inay wada shaqeeyaan ayay maslaxada deegaanka Soomaalida ay ku jirtaa